DJ Bulo أمان دولو لما قول قولو ويل كليه عرك دولو أدبا السلام يا DJ بولو عفي يتيم كعقبا السلام يا تيم شربو واحد اللي DJ بولو ويل كليه ويلشا حتى وكي ماذا أمريكا نيروبي جوجا وأنا كاسابي وشدن تاي واحد اللي يروب هلقى فائديستو مانجر وين أيمن وإن سلام معاك يبان إن أنيس دجالسنا دور مرة هروي وقعد من كل رفيع وريسنا يركي هروي وقعد لعريتاس أنين تاسو كانت qaabka oo ugu qoslaya ama qaabka ugu fil celinaya muuqaalkii Munir waxay ku cadeynaysaa ama taas ay ku muujinaysaa oo dagaal baasan ama dagaal aad u badan oo kala dhaxeeyo Lil Balil iyo ka dhaxeeyay CK sababta tahay Munir wuxuu karbaashaya ama markaas karbaash indaba Lil Balil ayuu karbaashaya ama uu ku dhaga hadlaya marka isagana sidaas ayuu fil celinaya ama sidaas ayuu qoslaya sababtay tahay wuxuu gud ku haya ama jistay ay sirqda ku wada hayaan fanaan Lil Balil fanaakas oo xifaaltan far badan oo kala dhaxeeyo dadyo aad u far badan ama bulsho aad u far badan hadii aad tahay ama qof dadka social media bulshada dhalinyarada ku wada jecel yihiin waa xaqiiq jistay in uu qof walbo dagaal far badan oo kala dhaxeenayo ama qof walba oo jistay kula xisaabtama ama meel kala dagaalayo ama fikradaada oo kula dagaalayo ayaamahan dambe lagu soo baahinayo dhanka social media in dib ay u heshiiyeen ama ay noqdeen saaxiibo iskaga agdhow saaxiibo oo hore la iska ahaa oo la wada ogaa in ay saaxiibo hore ahaayeen Lil Balil iyo CK labadaas oo dhanka muusikada ama dhanka erayada loo sameey jiray dhan walbo ha noqotay dhanka heesaha in loo sameey jiray CK oo lagu caawin jiray dhanka sababtay tahay uu ugu soo horeeyay Lil Balil dhanka fanka ama justii sababta taa qofka saaxiibka oo kaaga horeeyo ama dhan walbo markaas isaga ahaan waxaan oo kaaga soo horeeyay waa kaaga cilmi badan yahay waana kaaga aqoon badan yahay marka in caawin sameeydiisato ama just uu ku caawiyo wax la yaab ma aha sidaas la wada ogyahay ama just in uu caawin jiray CK ayaa just dagaalka dhex qarxay dagaalkaas dagaal oo aan soo koobi karin ama sawaha uu qarxay ama muuqaal kaliya bis aan lagu soo koobi karin ku arkay in uu xifaaltan kala dhaxeeyo isagana ama uu la dagaalsan yahay Munir ayuu just ay dhanka Instagram-kiisa ama dhaga hadalka ama just sida oo muuqaalada kilibada yar-yarka oo soo dhigay ama qoraalada 99% dhanka qoraalada ayuu dhanka status-kiisa kusoo karbaashayaan ama fanaankaas oo ugu dhaga hadlaya waana wax badan in badan lagu yaqaano dumarka in ay mid kale ku dhaga hadasho ama ay isku jeejeysaan badana ragga lagu ma yaqaano sababtay tahay ninka aad isaysin ama ninka xifaaltan kala dhaxeeyo waxa qurux badan face to face in isku tagtiin ama just markaas aad wixii xifaaltan meeshaas ku wada xifaaltantiin laakiin in isku dhaga hadashiin ama dhaga hadal caadi ah